Bismillah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawadayaasha ku xiran channelkayga TikTok Sajiya ku soo dhawaada muuqaalkayga maanta. Maanta waxaan ka hadlayaa waa maxay nafaqo. Nafaqo waa maxay? Maxay tahay nafaqo yaa maraan maanta ka hadlo. Haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar, like dheh, share laba ka mid ah asxaabtaada u sii share garay si ay ugu faa'iideystaan macluumaadkan caafimaad. Waa maxay nafaqo? Waa maxay nafaqo? Nafaqadu waa qaabka noolaha ugu isticmaalo cunnada uguna faa'iideysto dheefshiidida, nuugida, qaadista, keedinta dheefshiidka iyo qashin saarka si ugu faa'iideysto ayaa loo yaqaanaa nafaqo. Ujeedooyinka cunnada loo qaato maxay tahay? Waa in sii jirtaa ama ay sii jiraan nolosha. 1. Koritaanka 2. Dheefsiga 3. Shaqaynta xubnaha iyo soo saarida tamar si uu sii jirto ayaa loo qaataa cunto. Haddaba waxaa jirta 6 nuxuro ah oo jirka u baahan yahay una laga marmaan u yahay. Maxaa ka mid ah 6 nuxuro? 1. Carbohydrateska ayaa ka mid ah, proteiniska ayaa ka mid ah, lipidiska ayaa ka mid ah, vitaminiska ayaa ka mid ah, mineralska and water ayaa ka mid ah 6 nuxuro. Nafaqo-darridu waxa ay sababi kartaa cudurrada ku dhaca wadnaha iyo cudurrada ku dhaca kelyaha. Haddaba cuntadu waxay door muhiim ah ka qaadataa quudinta muruqyada iyo maskaxda. Caafimaadka jir ahaaneed waxayna ku xiran tahay xaaladda nafaqo ee uu qofku isticmaalo. Nafaqadu waa shayga ugu muhiimsan uu jirku qaato, waxayna qayb weyn ka qaadataa koritaanka iyo dib u soo celinta unugyada jirka. Waxaana nafaqada loo qaybiyaa 2 qaybood. Macro iyo minor ayaa loo kala qaybiyaa. Inta badan nafaqada waxaa looga faa'iideystaa xagga tamar ahaaneed. Nafaqo-darrida waxay sabab u noqon kartaa cudurrada qaar sida tuberculosis-ka. Sidoo kale waxaa ku soo hoosgaban kara cudurrada ka yimaada dibadda. Saameynta aan tooska ahayn ee uu bulshada ku leeyahay nafaqo-darrida waa mid aad u badan marka loo eego dadka u dhimanaya ama ay ku saameeyaan xagga nolol ahaan. Nafaqadu waxay muhiim u tahay koritaanka jirka, waayo jirku haddii uu helo nafaqo wanaagsan wuxuu sameynayaa koritaan marka loo eego xagga muuqaalka iyo koritaanka unugyada jirka. Sidoo kale hooyada uurka leh haddii ay tahay mid nafaqo dareynaysa waxay saameyn ku yeelan kartaa ilmaha caloosha ku jira. Haddaba nafaqada wanaagsan waxay muhiim u tahay nolosha aadamiga. Inta badan nafaqada waxaa looga faa'iideystaa xagga tamarta iyadoo loo beddelayo qaabaynta dhismaha ee nudayaasha ama in loo keydiyo qaab dux ahaaneed. Waxayna aad ugu muhiimsan tahay heerka qaybinta nafaqada sida siinta jirka. Haddaba habka isticmaalka nafaqada waxay ku xiran tahay xaddiga nafaqada ama heerka nafaqada uu jirkaaga qaadan karo. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkayga. Fadlan ku soo biir channelkayga, subscribe saar, like saar, kambalelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo geliyo. Fadlan una sii share garay laba ka mid ah asxaabtaada si ay ugu faa'iideystaan macluumaadkan caafimaad. Waad ku mahadsantahay.